inay nastaan inay u baahan yihiin waan ognahay laakiin saastee taana macnaha waxay u badan oo noo diidaya jira lo'da inaan nasino oo waayo daaq sin in la siiyo. Jag har ingen växel. Har du inte växel? Nej. Vi tar nästa gång. Sweden waan u jeednaa hadda marka lo'dii wana. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Akhyaarta maanta waxaan aadaynaa haddii ilaahay ku idmaayo beer ku taalo magaalada Alvesta ee ku taalo maxaa la yiraahdaa tuulo yar oo ku taalo waayo Sweden. Maanta waxaan rabnaa inaan soo gadano caano xero oo lo lagu xareeyo ayaan soo fiirinaynaa. waxaan soo fiirin doonaa insha Allah qaabka ay Swedishka ee xoolaha u xanaanayaan anagoo hor u soo aragnay qaabka Soomaalida ay u hayaan. waxaan arki doonaa qaabka casriga ee lo'da loo hayo ee sanadkan. run ahaantii waxaan rajeynayaa Soomaalida waxay u badan inaan uga daysano maxaa la yiraahdaa wadankan Sweden maadaama ay dad ay xagga qaabka xoolaha ay ku horumareen ay yihiin anagoo ah dad lagu tilmaamo dad xoolaaley ah haddana weli waxaan ku dhaganahay barnaamijkii oo hore ee casriga laga tagay. baryahan adduunyadu way horumartay lo'da halkan sida loo hayo iyo lo'da xagga loo hayo sida loo hayo ayaan arki doonaa maanta haddii ilaahay ku idmaayo. marka barnaamijkan la socda insha Allah like-ta iyo share-kana maxaa la yiraahdaa waa dhankiina wixii comment-na maxaa la yiraahdaa noogu reeba maxaa la video-ga hoostiisa hore wixii aad u aragtaan qaladaad ama wixii aad u aragtaan inaan ku fiicannahay fadlan noo sheega. aad iyo aad u mahadsantihiin maxaa la dhahaa lana socda maxaa la barnaamijka haddii ilaahay ku idmaayo waan idin salaameynaa haddana nala socda haddii ilaahay ku idmaayo. xilliga la joogo hadda waxaa waaye bishii waxaan ku jirnaa shanaad 22keeda sanadu waa 2024 marka waa xilli oo samarkii uu soo galayo oo winterkii mar dhow laga baxay geedahaas aad arkaysaa maxaa la yidhahdaa waa doog haddii kameramaanka uu ku qabto maxaa la dhahaa dhinaca cagaarka bal ku qabo marka dhulka waa dhul aad iyo aad u barwaaqaysan xilliga barwaaqada hadda lagu jiraa marka waa xilliga ugu fiican oo Yurub maxaa la yiraahdaa barnaamij laga soo sameeyo maadaama xilliyada oo winterka ay qabow zaid ay tahay. marka maanta ayaan insha Allah jaanis u helnay. Sweden waa wadanka maxaa la yiraahdaa ugu dooga badan haddii la sheego wadamada Scandinavian-ka waa wadan oo dadkiisaba dadka aad ugu yar yihiin sida arkaysan. marka maanta barnaamijkan insha Allah nala qayb qaata waxaan soo fiirin doonaa meeshii oo xayawaanka sida tuuya iyo qodobkii uhurooguwi ku taagsaday sida tuuya iyo qodobkii uhurooguwi ku taagsaday digada isku filayo tumatisare digada isku filayo tumatisare yanku tama keli ahayde qurux lagu tilmaamay keli ahayde qurux lagu tilmaamay. akhyaarta marka weli meeshaan u soconnaa meeshaan saad u jeedaan waa meel baadiye ah magaalada Alvesta ayaa cabaar u jirtaa marka meeshaan u soconaa weli. akhyaarta haddii aad ilaa intaan nala soo gaartay fadlan like-ta iyo share-ka waa dhankiina waa waxa kaliya aan kugu leenahay. marka insha Allah like-ta iyo share-ka naga baqiilin waxaan intaan u dadaalayna waa inaad adinka aad fiirsataan barnaamij oo qurux badan oo quality-na fiican leh. marka insha Allah hadda intaan nala soo gaartay like-ta iyo share-ka waa dhankaaga. marka barnaamijkan waan sii soconaa weli
la socda barnaamijka insha allah. weli meesha ayaan ku soconnaa. caanaha markii meeshaan dadka caanaha gadayaan waxaa sameeyaa caanaha hadhowna waan tusin doonaa insha Allah sida caanaha ay u lisaan. caanaha markay lisaan iyaga waxay sameeyaan meel haana lagu shubaa, haantaasoo qaboojiye ku xiran tahay sifa aysan caanaha ay u halaabin. kadibna waxaa u imaanayso bahal la yiraahdo booyad oo iyadana maxaa la dhahaa qaboojise ah. booyadaasaa kulli ka shubanaysa caanaha oo haysto kulli. kadibna booyadaasa waxay sameynaysaa warshadaha waxay geynaysaa oo caanaha oo filtareeyo. caanaha markii oo laga soo qaado maxaa la dhahaa lo'da waa caano oo raw milka la yiraahdaa, waa caano aan la filtareynin waxba lagu sameynin waaye. marka waxay sameeyaan warshada caanaha waxay ka dhigaysaa, qaarna waxay ka dhigaysaa yogurt, qaar waxay ka dhigtaa maxaa la yiraahdaa qaarna waxay ka dhigtaa qaar yogurt. qaarta meeshii lo'da ayaan imaanay. lo'da meeshaan ayay ku jirtaa si aad u jeedaan. meeshaan oo u xiranay lo'da ku jirtaa, cooskeeda iyo barnaamijkeeda iyo waxeeda dhan oo u diyaarsan yihiin. inta markaan eegno cooskan waa cooska la yiraahdo hayga. waa u jeedaan cooska isagoo wareegsan oo buntadaysan ayaa lasoo qaadaa. cooskaas bacda ayaa laga furay, bac uu ku wareegsanaa. waxaas u jeedaan oo gacdaanka. marka cooska waxay sameeyaan waa la kala furaa. markii la furo kabacdina gaarigana lagu shubaa, kadibna waa la qaadaa, waxaa lagu ridaa meeshaas. lo'dii meeshaan ku jirto waa kuwan cungihii yaraa, waa kuwii yaraa dhan meeshaan lagu xareeyay. cooskooda waxooda barnaamijkooda halkaasaa loo dhigaa. lo'dan marka waxay uga duwan tahay lo'dan lo' socota dhan maba habo. waxeeda dhan cuntadeeda iyo biyaheeda iyo kulli meeshaan lagu siiyaa. meeshaasay ku jirtaa lo'daas. ujeedaan kan hadda waa cunug waa lagu dhaafay intuu la facay fiiri weynankiis intaasuu la facay. waayo 24 saac waxaa waaye cuntadiisu cunaa. mid walba wuxuu leeyahay dhegtu wuxuu ku wataa maxaa la yiraahdaa level qorto dhegtu ku wataa. soo ma jeedid? mid walba waxaa waa level dhegtu ku leeyahay, number uu leeyahay mid walba. wadankan hadda waxaas waa 600 waa 60 11. marka mid walba waxaa waaye marka levelkaas lagu xeeyaa. lo'da marka meeshaan ay ku jirto hadda maahane meeshaan gurigan hadda ay ku jirto gurigan way ku soo habeenkii iyo caanaha bisa looga maala halkan. marka caanaha laga soo maalo oo la rabo in oo daaqo marka la rabo gadaal dambe laga soo bixiyaa. meeshaan gadaal dambe ka soo baxayaan waan tusin doonaa. halkaas ay ka soo baxayaan. xarkaan waxaa lagu xiray si aysan maxaa la dhahaa aysan wadada u soo dhaafin. meeshaan way ka xiran tahay. marka lo'da meeshaas ay ka soo baxaysaa, wadadana soo qaadaysaa, xagga toos u maraysaa. waxaan u jeedaa waa iska xagga markay maraysaa. markay xagga marto lo'da meesha kaleeto ay daaqaysaa. markaan tusin doonaa haddii la yiraahdo. lo'da meesha la daaqiyo ayaan tusinayna hadda. meelaha way u kala xirxireen saad arkaysaan. halkaana waa cuntada lo'da ayadana lagu xareeyaa bacdan. soo ma jeedaan? bacdana lagu xiraa. cuntadan waa cunto hadda la isku shiido waaye. soo ma jeedin? cuntadan waa cuntada lo'da loo shiido waaye. cuntada lo'da la siiyaa. marka
mataqaanaa ninkaan lo meeshaan waxaa jooga beertaan waxaa jooga eli baalkaasito waa baalaha oo waddanka Suudaan laga helo iyo lo'daan intaasaa calaamad u ah lo'daan waa ujeedaan marka ninkan oo beertan iskale gurigiisana waa kana meeshaan uu ku degan yahay gurigan villadan halkan ugu dhisan maxaa la dhahaa gaadhankiisa wixiisa halkay ku xiisayiin goobtiisa shaqadana waa tanaa marka ninkan dhibaato iyo shiddo dhan isku xeenayo taraktadiisa waa taas cawska daay aan tusinin oo bundadaysanaa waa kaas marka intana gurigiisu waaye waad arkaysaa marka ninkan dhib iyo dhan ma maraayo iyo meel dheer iyo dhan maba aadayo gurigiisu ka soo baxa beertiisu waa taas meesha caanaha ku lisay caanahana insha Allah waan tusinaynaa meesha caanaha lagu liso lo'dina waa tanaa marka lo'da la lisay waa tanaa lo'da hadda qayb soo inoo sheegay lo'da badankeed hadda way maqantoo dhahay waxay jirtaa meel foga la geeyo dhahay lo'da waa tanaa marka meeshaan la geliyay meeshaas laga soo bixiyay meeshaan ay soo goynaysaa lo'da meeshaan ay daaqaysaa oo jeedaan lo'da waa taas siligaas ku xiran gurigiisana waa kaasa ninka gurigiisa lo'dana waa taan lo'da socod lo'da waxa dilo oo caanaha dhan ka yareynayo waa socodka iyo daalka faraha badan waaye Soomaal haddana anaga lo'da waxa waaye subaxdii saan orod ugu bilaabnaa waxa waaye habeenkii la soo xareynaa lo'da iyadoo way daalanta lo'da markay daasho stress qaado caanaheeda way yareynaysaa Soomaalida horta waxay ku maamahay jirtay lo hadda wanaageeda rabto labada lugooda horena biyaha kula jirto labada dambana hoos kula jirtay Soomaalida kuma maada marka Soomaalida naftakeeda waan ognahay xoolaha inay nasiinada u baahan yihiin inay nastaan inay u baahan yihiin waan ognahay laakiin saastee taana macnaha waxay u badan oo diidaya jira lo'da inaan nasino oo waayo daaq siin in la siiyo hadda ninkan xoolihiisa kala doo barnaamijka uu sameeyay barnaamijkaas waa barnaamij lacag ku badan ku bixayso waaye in oo caws iyo loo jaro meel la dhigo waa la sameyn karaa laakiin idan qarash ku baxayo marka waad u jeedaan lo'da saan meeshaan iskaga nasanaysaa hadda way cuntay sida cawska loo jeedaan hadda meeshaan lo'dan caws la'aan ahay yaa dhahayo qofkan inta markay soo dhameyso marka inta lo'da qaybtana loo xiray marba qayba loo furaya marka qaybtan hadda way xiran tahay waayo qaybtan hadda uma baahna lo'da inay isticmaasho qaybtan dhan hadda way xiran tahay hadda qaybtana loo daayay qaybtan markay dhameyso ee cawska ka dhamaad halkan qaybtan kala loo soo wareejinaya qaybtaydana way xiran tahay marka Sweden waan u jeednaa hadda marka lo'dii way nasanaysaa iyadoo la lisaayo iyo meesha lagu lisaayo idan waan arki doonaa hadii la yiraahdo meesha beertan oo dhan hadda ninka haayo hal nin oo shaqaale meeshaan ka shaqeeya hal nin oo shaqaale ka shaqeeyo waayo badanaa mashiin la adeegsanayo caano lo'da marka la lisaayo mashiin la adeegsanaya lo'da markii oo maxaa la yiraahdaa oo xataa loo qubeynayo xataa baal meel mashiin lagu dhixdaaya oo macnaha biyo ku furayso marka badankood taraktada hadii la yiraahdo oo cawska jarayso mashiin loo isticmaalaya marka wax la qaadayo male anaga dadkeena maxaa la dhahaa oo reebaadiyeena anaga way dhinteen waxay ku silceen maxaa la yiraahdaa xoolaha uga daba ordaayeen wallahi naftooda markaad aragto waxaaba dhibaatada marayaan baadiye marka soo arka marka waxay fara badan aan u baahanahay inaan ka bedelno sida hadda meelaha la seexdo kaleeto in aqal macnaha taa guri wixii awoodaan xataa oo maxaa la tendooyinkan oo la yiraahdo tendooyinkan oo camping loo isticmaalo kale hadii ay isticmaal lahayn dadkeena baadiyaha joogan oo markay meesha ay xirtaan meesha ay rabaan inay ka guuraan teendhada la bisay furfuranayaan meesha ka tagayaan laakiin hadda waxa waaye aqal la sursuraa meel dhibaato badan la maraya marka waxay badan ayaan insha Allah uga deensan karnaa dadkan sida ay xoolaha u dhaqaan waad u jeedaan barnaamijkan waa very beautiful way wax ka qurux badan bal ii sheegay meeshaan lo'daas fiir loo si caafimaadkeeda u qabto lo'daas fiiri waa nasanaysaa lo'dan
وجدها ماشان أنا كل ماشان أنا وضع عوس مينا عوس كان أصلا لو فصحة وحب الآدن وترسباسين وقف كوسو جلاي ملهن جورجا فارها يبرافت كاجا نين كان دول كان دن أساس كله وجدان waxaan dhan adiga waa dhowr eekar waa dhowr iyo boqol eekar oo leeyahay kan wax la gaari karo ma ahan meeshaas taa caws kala ugu xareysan oo geeskaas u dhigtay mashiinada waa mashiinooyinka isticmaalo waaye ee guryaha kana cawska meeshaan laga guraa meeshaan waa taraktadiisi iyo wixiisa oo maraan waxaan dhankan asaas kale oo jeedaangeeda cawska teeda kale meeshaan markuu roobka san u da'abo dhulkan cagaarkiis waxa waaye waa diyaarsan yahay cagaarka horow ka imaanaa anaga dhulkeen waxa arkaysaa meel qarkood maxaa la abaarta waaba ma leeyahay inay abaarta ila dhaltaa u qabtaa oo meesha dhan iska qallalan tahay lo'da waa kana meeshaan waxa ku jiraan kuwa waaweynaa ku jiraan meeshaan qolkaan dhana u xiran xilliyada kuleelka marka la gaaro xilliyada oo kuleelka marka la gaaro albaabada loo furayaa si ay u dheersato xilliyada qabowgan meeshaan albaabada loo xirayaa kuleela loo daarayaa marka waxa waaye meesheeda ay ku baashaalaysaa oo jeeda hadda meeshaan waa marka la keeno looda kulliis waa loo qubeynaa meeshaas ay cooskeeda ka cunaysaa 24 saac waxa waaye cooskeeda coos la'aan ma wana qatabo loodaan 24 saac cooskeeda waa kaas oo u diyaarsan yahay cooskan aad u jeedaan waa coos oo loo keydiyo waay cawska waa la keydiyaa markii oo xilliyada loo baahdo waa loo soo bixinaa ujeedaan meeshaan waa meeshii oo lagu heynaa iyadana kuwii hadda banaanka joogo ay qayb loo soo bixiyaa marba gruuba la soo saaraya lo'dan kulligood waxa moodaa inay mantaanihiin kulli isku kalar waay saa u jeedaan ma qaylinayso lo'deen aniga waxaan naqaanaa inay maanta inay qayliso lo'dan hadda hal qayl ma ka maqshaa wadankan lo'dooda iyo eygooda ma qaylaan wadankan waayo stress ma haystaan lo'dan hadda caanaheeda waa caanaha oo dukaamada lagu iibiyo waaye waa uniga la soo filtreeyay waaye lo'dan si weynta fiir markaad fiir استاجا الفعلة لو ذين أنا قوى لو إذا أنا بقوم حلا أد ويرواي لو ذا أنا كفير و very beautiful قل كاسة كجرتا عوس كذا لو كنا عوس كذا واكن وحنا محل هذا إذا لو عنس marka ninkan qaybtan inta ku jirto kuwii banaanka joogay waa kuwaas cawska kale ta banaanka uu si diyaarsan yahay waxa shaqaalay wax meeshan joog markiisid waxa oo isdhibaaya malaha hadda taan ma salaameyn la yaqaan marka gawaaridan bisa u baahan yahay iminka mashiinka oo tractation iyo hal nin oo ku wada bisa u baahan tahay mar hadda mashiinaha sitida shaqaalaha xataa lacagtooda faraha badan xataa ay ka yaraanaysaa
intan waxaa ugu jiraan haaman oo biyaa ku jiraan arano waxay ku sameeyaan ma aqaano waayo meeshaan biyo way leedahay mar walba tubo marka qaybtan waa qaybta cuntooyina ugu jiraan amaleena meeshaan marka meeshaan habeenkii hadaa imaato oo isdhahda micnaha xoolahan xad markino baalkaana shaqo kaaga qabanaya yeeshaan soo jeedid beertaan habeenadii siligan hadda uu ku xiran yahay maalintii siligaas uu ku jiraa habeenkii waa la soo fasaxaa habeenkii dhan asaga marka meeshaan ka shaqaysanaya meeshaan waa meesha kale cuntooyin ku jira waaye cuntooyinka iyo mashiimadooda iyo qalabkooda ugu jiraan meeshaan meeshaan soo jeedid meeshaan aan ka ilmaam cadayna tusiyo meeshaan waxaa la sameeyaa xaarka lo'da oo dhan meeshaan lagu shubaa meesha soo jeedid saan u xiran meeshaan oo dhan ba mujeedaa waa meel saan u weyn waaye xaarka lo'da dhan meeshaan lagu aruuriyaa kadibna waxaa laga sameeyaa biogas laga sameeyaa oo jeedan tubadaas ku jirto soo jeedid tubadaas ay ku xiran oo geeskaas u jeedaan kadib maxaa la yiraahdaa mashiimo kale oo xaga kula soo xirinaysa biogas laga sameeynaa heater ahaanaba loo isticmaalaabo xaarka lo'di oo wixii laga sameeyay biogas laga sameeyay ayaa loo isticmaalaa maxaa la heater ahaan marka waa anigana maxaa waa xaarka lo'da dhibaato weyn oo nagu haya iyo wasaq iyo qashinkiisa iyo nagu haya markii oo biogas laga dhameystana xaarkan waa la soo qaadaa beerta lagu daadinaya wuxuu noqonayaa maxaa la yiraahdaa manure noqonaa marka beerta loo isticmaala beerto nafaqo caadi ah inuu siinaa because lo'da arkiisida xarkeeda waa lo'da waa saxaradeeda waa cawskaas ay cunto waa cawski markii oo saxaro noqdo oo biogas laga bixiyo asaga beerihi lagu sii daadinaa beerihi nafaqo aan caadi ah inuu siinaa dhulka marka waa dareemi kartaa marka waa wax walba in oo recycle la sameeyo wixii la sii isticmaalo mar labaad waa shay aad iyo aad u fiican waay marka barnaamijkan biogaskan Soomaalida aan ka faa'iideysano waa barnaamij aad iyo aad u fiican waay Jag har ingen växel. Har du inte växel? Nej. Vi tar nästa gång. Vi håller den 5 kronan. Vi tar nästa gång när vi köper mjölk. Okay. När ska ni koppla denna? Den är kopplad men vi tankar ju. Så vi mjölkar inte klockan 5. Ni brukar köra för klockan 5? Mm. Okej. Då kommer vi nästa gång när ni ska koppla den. Tack så mycket. Sushkula Dawidi. Ja. Du är swiss eller? Det man inte. Nej, de använder bara kontant. Ska du? Hej, hej. Ha det så bra. Caanahan soo gadanay caanahan 2 litir iyo bar waay 15 krona la kisiiyay litirka dhan waa 5 krona wadankan waay 2 litir bar meeqaan kisiiyay 15 soma 7 krona waay marka u jeedaan beertaan ku soo dhawaada caanaha darabtaan waa heleysaan wax walba meeshaan ku diyaarsan yihiin hadda qaarta insha Allah maalin kaleeto beer meeshaan beer ka weyn aan tagayna insha Allah haddana waa si yaacayna insha Allah magaaladan maxaa la yiraahdaa Alvesta waa magaalo Soomaali badan ay degan tahay muslimiin badan ay degan yihiin hadda masaajid xataa laga dhisay meeshaan masaajid meeshaan kaniisadii ahaan jirtay kaniisadii waa laga wareegay masaajidka laga dhigay meesha kaniisadii kirada iska bixin weysaa lahayn markaas waxaa la wareegtay maxaa la masaajid ma sha Allah waa wax aad iyo aad loogu farxamay runtii anaga maadaama horta aan Soomaalinaanay haddana aan muslimiinaanay maxaa la yiraahdaa horta waxyaabo badan oo maxaa la yiraahdaa muslimiin haddana waxyaabo badan oo aan proud aan ku noqon karna ayaa jiro oo aad iyo aad aan ugu farxana ay tahay maadaama oo anaga lagama yaabo masaajid oo muslimiin ah in la yiraahdo masaajid intii la xiray kirada iska bixi waayna masaajid loo xiray wiligeed lama dhihin
masaajidada badanaa horta anaga lacagta waanba gadanaa marka anaga horta xaggaas aad iyo aad ugu fiicannaa waa waxyaabaha keliya aan aad iyo aad aan ugu farxo waaye xagga masaajidka haddii la yidhaahdo xagga haddii la yidhahdo diinta haddii la yidhahdo iyo madarasooyinka iyo aad aan ugu dadaalnaa masaajidkan haddaa ujeedaan masaajidkan dad waxaa oo muslimiin ah soomaalidana ay ka mid tahay maamulkiisa laakiin waxaa ahay jajniyaan waa maasha allah in meel kiniisad inta laga saaray maadaama ay kira bixi waayeen awgeed oo meesha masaajid laga dhigo oo waxyaabaha keliya aad iyo aad aan ugu farxo waaye maasha allah marka waxay taas waxay tusinaysaa muslimiinta inaan dad oo macnaha diintooda inaan u jajabnaana ayay macnaha ayna tusinaysaa oo macnaha dee wax walba diinta ka nooga horeysa anaga wax walba qarash walba aan ku bixinaynaa marka masaajidkan waa masaajid asagana maxaa la yidhahdaa xaaladiisa saas ah insha allah hadartan salaadii lama gaarin oo casirkii waxaa ka dhiman nus saac camal waana xiran yahay markaad waxaa la furaaday rub saac ma ka dhiman tahay insha allah maalin kale aan soo tugi doonaa hadduu la yidhahdo barnaamij kaleto waxaan ka dhiganaa tirig baxay la moodiyey xubnato sanaantiyo xaragada la ticdaa tirig baxay la moodiyey xubnato sanaantiyo xaragada la ticdaa tashi igu abuurto kalamho darata tashi igu abuurto kalamho darata وعوية تاهي وعوية تاهي وعوية تاهي وعوية تاهي تسالدي جنة يو تسمدي أمان تاي